soo dhawaada walaalaha ku soo dhawaada morning routine-kayga waxaan idin la share gareynayaa morning routine-ka aan isticmaalo maalin waliba scrub-yada ama maalin dhaaf aan u isticmaalo scrub-yada waad aragtaan midna waa cafe midna waxa dhuxul ka samaysan yahay midna waxa waaye mid kale oo anti spotting ah wuxuu ka hortagaa nabro malihi laakiin insha Allah walaalay qaba gooni u isticmaal karaan ka faa'iideysan karaan iyo waxaan isticmaalayaa siiramo kala duwan lipstick-gayga iyo dhalaalasada insha Allah intaas waa muhiim in mar waliba la sameeyo ama maalin dhaaf loo sameeyo gabadhiga iska taxadir gaar ahaan waxay fariinta ku socotaa gabdhaha inay wajigooda ka taxadiraan waji toqadaa yeelatid aday ku taalaada isu keenay brushkas waa muhiim inaad u isticmaashid waxaan kaloo idin share gareynaa ilooway face wash taan isticmaalo waa bariis dadka wajiga qalalan iyo dadka wajiga qoyan inta way isticmaali karaan moisturizer ay leedahay saliid badanna ma keenayso waa kan aad waxaan ka bilaabay scrub-kii dhuxusha ahaa asaga marsanaya waan soo marsaday video waan soo yaryareynaa aan soo koobaya wax badan marabi markaan soo dhaqeynay towel yar aan qaatay oo iskaga tirtiraaya si tartiib wajiga lama xoolo markii la iska tirtiro xoog loo isticmaalaan ka wadaa kadib hadda waxaan marsanaa scrub-kii labaad spot control waaye nabra hadaadan lahayn wuu ka hortagayaa haddii aad leedahay wuu ka baabinayaa sidoo kale waxaan isticmaalayaa midkii kafeega ahaa kafeega kiisa fitamiino badan oo la jiraan waxaan u baahan yahay 3 minutes inaad ku massage gareysid wajiga aad buu u fiican yahay scrub-kaas saliid yarna wuu ku siinayaa wajiga dadka qalalan aad buu soft u yahay waad aragtaan horta labada scrub markaan ka dhaqay wajigayga siduu yahay kii saddexaad aad marinayaa ila socda insha Allah karaali noqdo codka ilmaha iska joogaan soo aad waxaan marsanaa scrub-yada dhan waan ka dhamaad waxaan marsanaa serum-ta noocaas baan marsanaa anti aging-ka waaye maanta qorax baa jirto waxaan soo marsaday kaliya vitamin C-ga soo waa aragtiin ugu dambeyn wajigayga siduu shining-kiisa u baxaayo brighten yarna u leeyahay ka faa'iideysta insha Allah